السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالكن كوبان waxaynu ku ogaan doonaa ama ku baran doonaa hab cusub oo iyadoo online ah ugu hagaajin karno sawiradeena computerka ku jira inagoo wax software ku duuban computerkeena. Waxaynu gali doonaa website-kaas oo inoo sahli doona ama inoo fududeyn kara inaynu sawiradeena ku hagaajino qaab online ah inagoo la soo degin ama soo rogan wax software ah. waxaynu gali doonaa softwarekeena magaciisa inagoo halka ku qoranayna website-ka magaciisa Photopea halkaas aad ka aragtaan online photo maraba marka inta ku qorto search-inta waxaad ku sii dhufan doontaa qoraalka noocan linkiga ku soo horeeya ee inta ku qorantay www.photopea.com yada ayaan sii dooran doonaa linkigan sidaad aragtaan waxa soo furmay daaqad u eeg daaqada Photoshop-ka oo dhammaan badhamo kala duwan oo aad u fara badan ay ku jiraan. Marka si aan u tijaabiyo inuu shaqeynayo waxaan leeyahay sida caadada ah ee sida applicationska ama software-da Photoshop oo kala file ayaan dooranayaa. waxaan leeyahay new haddaan doono open labadaba oran karaa. marka si aan mid cusub aan ula soo dego ama aan soo furto file hore igu jiray waxaan halkan waan ka dooran karaa waan soo dooran karaa soo furan karaa shayga bartanna waad aragtaan waxa ku qoran open from computer waxaad ku soo furtaa computerka. marka sawir computerka igu jiray ayaan raadsan doonaa. waxaan u baahanahay logadeenan open ayaan leeyahay logadan ayaan marka doonaynaa qaab online ku hagaajisto aan ka jarto hareeraha si ay ugu soo baxdo logo saafiya. marka magic wand ayaan dooranaa badhankan dhinacan ayaan ka jaran doonaa si ay ugu noqoto logo sax ah oo dhameystiran. tan doono badhanka waxaan dooran doonaa quick selection toolka ayaan dooran doonaa toolkan maadaama uu ka dhaqsi badan yahay badhamada kale xagga Photoshop-ka wixii khaladaad hadday ka dhacdo waa qaabkii Photoshop-ka uu shaqeyn jiray oo kale control C ayaa dhigaysa haddii karta hadday wax khalad ka dhacaan ama meel khaldan ay kaga dhacdo kan ayaan ku wadan doonaa wixii khalad insha Allah taala waa iska ilaalin doonaa ku wadayna. marka software-kan aad ayuu u faa'iido badan yahay ama website-kan ayaa oran karnaa maadaama uu u shaqeynayaba sida Photoshop-ka ama ku qabanaya shaqadii Photoshop-ka ku qabanayay. waad la wadaagi kartaan asxaabtiina maadaama uu yahay website aad u faa'iido badan. marka hadda waxaanu dhameynay inaanu logodii hareerihii ka jarno inagoo isticmaalayna qaab online ah. marka waxaan sameyn doonaa hadda toban diyaarina logadani oo save gareyn doonaa marka sidii Photoshop-ka caadiga waxaan halkan ka sameyn karnaa file ayaan leenahay save on dhihi karnaa laakiin waxaan dooranaa qaybtan export as PNG iyo JPEG laba waxba inta oo dhan way ku shaqeynayaan kuwa hoosan halkan ay ka siraadaysaa hadda doonayso inaad icon iyo wax ka dhigato. marka aniga PNG oo logada ah ayaan doonayaa inaan ka dhigto PNG ayaan marka PNG marka aan saa u doorto wuxuu igu save garanayaa computerka iyadoo ama sawirka oo PNG ah. marka qaybta pictureska ayaan ku noqon doonaa waxaan ka raadin doonaa logadii qaybtan haddii aad marka ka weydo direct halkan aad uga weydo browserka ayaad ku noqonaysaa waad aragtaa waxaan halkan ka aragnaa save qaybtan save dhan ayaa u dhiman oo badhankan save marka dhahayo save ka rasmiya hoos ayaan ka arki doonaa. marka waa kan marka halkan ayaan doonayaa inaan waan save gareyn karaa waan furi karaa. marka mar haddaan soo furo waad aragtaan waxay noqotay logo saafiya oo aan lahayn hareeraha. markii hore aynu eegno marka hore sawirkani sida uu ahaa intaynan hagaajin ka hor qaabkan ayuu ahaa oo hareerahan oo dhan ayaa ku jiray. iminkana waad aragtaan sida uu inooga soo dhigay aynu ku noqono waa kan saas ayuu hagaajiyay. marka muuqaalkan waxaynu ku aragnay si looga sameeyo online adoon software wax software ku duuban Photoshop-kii oo badhamadiisii oo dhan ayaa ku jira. waan tijaabin doonaa ka sameyn doonaa muuqaalo fara badan haddii ku noqdo habka aynu save gareynay mar labaad file ayaan leeyahay export as PNG ayaan dooranayaa save ayaan sii leeyahay. haddii aad doonayso inaad save gareysid save as ayaa sii leedahay. waxaan dhiganayaa pictureska hore ayuu igu jiray marka haddana save garey ayaan leeyahay pictureska ayaan kusoo noqonayaa logadii ayaan marka u baahnaa inaan arko waatan
loogada marka hore say ahayd iminka say ahaydna waa aragtaan. Marka la wadaaga asxaabtiina channelkana hadda muuqaalka heshan like saara, channelkeena subscribe dhaha, muuqaalka xigeentan iskaga iman doona waxaan kaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.